sidaad warkaygiiba ku maqlayseen wararka ka imanaya gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu iscasilay. wararku waxaa kaloo sheegeen in ciidamada militariga dalka Itoobiya ay galeen magaalada Jigjiga iyadoo xiisada ay halkaasi ka jireen maalmihii la soo dhaafay. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka ay ku amartay in gobolka ay galaan si amniga iyo kala dambeynta ay u soo celiyaan. wariyahana Jacfar Kuukay ayaa arrimahan ka waraystay Khadar Cabdi Ismaaciil, gudoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. isbedel baa dhacay madaxweynihii hore markaa xilkii wareejiyey kuna wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed. isbedelkaas ayaa dhacay. Axmed Cabdi Maxamed muxuu hore u ahaa? Cabdi Maxamed wuxuu horey u ahaa xubin golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, isla markaana guddi fulaysa, isla markaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waana xubin xildhibaan ah baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. isbedelkaas ayaa maanta dhacay sida aad idinkuba aad u maqasheen oo si nabadgelya u dhacay, iyada oo uu madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqayn jiray, haddana danta shacabka eegaya ayaa isbedelkaas maanta aan samaynay. waaye ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la eg ayuu haynayaa ma la sheegay? xilka kolleyto xisbi baa lasoo doortay oo baarlamankii xisbigaa jira, sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa 5 sano already. hadda 3 sano way tagtaan umalaynaya. xisbiga ugu aqliyada badan baa mar walba madaxweynaha dhista ilaa inta baarlamanka laga horgeynayo oo baarlamanku uu sii sharciyeyn doono. kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalidu maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u codeeyey in uu sii wado inta baarlamanka laga horgeynayo Axmed Cabdi Maxamed. dee tarmiga baarlamankana kolley waad garan kartaa, waa 5 sano. waayahay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar hadda halkee buu joogaa? madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku sugan yahay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga. dhanka kale madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar waa gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, xilkiisii uu hayaa. waxaa nagu maqaalo ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe, sidaana ay ku timid inuu xilka iska casilo. warkaasi maxaa ka jira? madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore 3 sano ama 2 sano ugu dambeysay aan ilaahdo, waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu wareejiyo xilka. xisbiga unbaa hortaagnaa, xisbiga unbaa intaa diidanaa. haddana wuxuu go-aansaday ama xisbigu ay go-aansadeen inay ka wareejiyaan, iyadoo danaha shacabka markii horeba saan kuu sheegay uu eegayo, mar walbana uu taagnaa danaha shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya. yaa sida uu ku wareejiyey ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleyto ma jiro oon anagu ka warhayno hawsha laakiin gorgortan iyo cadaadistoona ku dhacay. waayahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada Jigjiga dhibaato xoogan baa ka dhacday, hanti baa la burburiyey, dad fara badan baa ku dhintay. hadda maxaa xigaya isbedelka dhinaca hoggaanka ah ee dhacay kadib maxaa la filayaa? kolley waxaan filaynaa in xaaladii iyo wixii dhacay iyo howlaha maalmihii u dambeeyeyba magaalada Jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto. sidii dee horey wararkii horena u baxeen, annaga laftanadu hawshani hawl waxay u ahayd kadis ah ama aanaan filanaynin. marka waxaan xilkii talada hayay wuu jiraa, baarlamankii iyo dowladdii iyo nidaamkii iyo systemkii way jiraan. isbedelkaa dhacayna waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaaho inuu hawshii uu dejiyo oo sideedii iyo xaaladii deegaanku ay kusoo noqoto. kolleyto waxaan isleenahay wax badan baa
haddii ilahay yidhaaho hagaagi doona. madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo keliya baa hadda xilkii ka degay, xisbigii baa talada weli haya, isagu weli waa guddoomiyihii xisbiga sida aad ii sheegtay, waxaana jiray madmadow soo kala dhex galay hoggaanka maamulka soomaalida iyo dowladda dhexe. sidee bay kusii wada shaqayn karaan baad isleedahay marka inta ka dhiman muddada madaxweynahan cusub ee hadda xilka lagu wareejiyey maamulka iyo dowladda dhexe? kollayto wax madmadow ah oo aan dhihi karno hadda dowladda dhexe ee federaalka dowladanada ah ayaa jiray horta ma jiro oo aan anagu aan garanayno. waxaan ka ahayn borobogandooyin aada la isla dhex marayay iyo dad wanaagii shacabka iyo wanaagga dalka iyo ka deegaankaba aan danaynayn ay ka shaqeeyaan waxaan ka ahayn. marka wada shaqayntu marnaba xisbigii wuu joogaa, madaxweyne cusub oo wadankii iyo deegaankii hogaaminayana wuu joogaa. waxaan leenahay wada shaqayntii way soconi, wax isbedelan ama horlana kuma keenayso oo dhib ah. wanaag iyo wada shaqayn iyo sidii horeyba looskugu duumnaa unbaa sii socon doonta. dadka dhaliilsanaa markii horeba siyaasadda hoggaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan hadda yimid qof keliya uun lagu sameeyey, laakiin weli nidaamkii iyo siyaasaddii lagu hagayay gobolka ay weli sideedii u taagan tahay oo wax isbeddelahoo muuqda oo halkaa ka dhacay aanay jirin marka laga reebo madaxweynaha xilka ka degay. ma u sheegi kartaa dadkaasi in isbeddel muuqda iyo dib u hagaajin uu la iman doono madaxweynahan cusub amaba xisbiga talada maamulka haya? horta madaxweynaha xilka wareejiyey kollayto dad ama si khaasatan u diidanaa ama ku kacsanaa haddii ay jiraan, kollayto maanta madaxweyne cusub ayaa la doortay. madaxweynaha cusubna kollayto shaqooyinkii wanwanaagsanaa ee soo socday ee horey loo sii qabtay waktiga iyo nafta iyo maalka iyo naftaba loo soo hurayna sidoodii ayay usii socon doonaan. waxyaala sixitaan u baahan haddii ay jiraanna kollayto madaxweynuha cusubi wuu sixi doonaa. waanan aaminsannahay in isbedelkan dhacay uu halkii kasii wada wanaagii soo socday, horumarkii soo socday, nabadgelyadii soo socotay waan rajaynaynaa, waana aaminsannahay. ugu dambayntii waxaa nagu maqaalo ah in ciidamo ay soo galeen magaalada jigjiga, maxaa ka jira arrinta? taas walaala oran jirtaa, hore aan u bixinay waraysiga v o a, ciidamada v o ana waan siinay, ciidamadiina way joogaan. hadda lafteedana waa sidii un kollayto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbedelada iyo howlaha nabadgelyada sidii amniga magaalada jigjiga dib loogu soo celin doonaa shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa. systemka iyo xisbigana shaqooyinkooda ugu horeeya wuxuu noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xasoonidii magaalada loo soo celin lahaa amniga loo siiyo. kaasi wuxuu ah khadar cabdi ismaaciil, guddoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka etoobiya. waxa uu khadka telefoonka ugu warramay waryahayga jacfar